بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعن ونكسن داود يال halka aad naga daawaneysaan waa channelka xogta media waxaad ku soo dhawaataan warbixin gaar ah oo aan diiradda ku saari doono afgambigii dhicisoobay ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku dhaqaaqay toddobaadkii in weedartay warbixintan ayaa daawadayaal dhacdooyin idinkugu soo koobi doona hayeeshee intaanan guda gelin waxaan daawaday ka dalbanaya on ka codsanayana muuqaalkan laag saarto la wadaagta asxaabtaada adigoo subscribe inoo saaraya channelka oo furan ee gambalaalka si durbadii baad u heshay muuqaaladan halkan soo gelino sidoo kale daawaday muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiya commentiga aragtidaada inagula wadaag markaana daawaday waxaad ku soo dhawaataa warbixinteena qiyaastii 2 ama 3 habeenimo ee 26 iyo 27 December 2021 madaxweyne hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu soo saaray war saxaafadeedyo uu ku fuliyo qorshe oo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ku dhaliilayo kadibna shaqada uga joojiyo si uu xukunka kula wareego. Farmaajo ayaa isku dayay in uu joojiyo doorashada kadibna ku codsado taageerada dalalka Ruushka, Shiinaha, Qatar, Eritrea iyo Itoobiya. Nasiib wanaag qorshahaasi waxaa fashiliyay saraakiil iyo ciidamo geesiyaal ah naftood horayaal ah go'aansaday in ay difaacaan dastuurka ku meel gaarka iyo nidaamka dimuqraadiga ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya doortay. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble wuxuu ku guuleystay in uu subaxii 27 December 2021 tago xafiiskiisa la rabay in lala wareego asagana lagu go'doomiyo gurigiisa haddii aan la dilin. 27 December 2021 ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble wuxuu shacabka Soomaaliyeed u jeediyay khudbad uu ku cambaariyay ee tilaabadii uu qaaday madaxweynihii hore ee Soomaaliya. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble wuxuu shacabka Soomaaliyeed u sheegay in Farmaajo yahay madaxweyne hore musharax madaxweyne lamida musharaxiinta kale hase yeeshee doonaya in uu hay'adaha iyo awoodda dawladda u adeegsado danihiisa shakhsiga u ah haddii kale uu burburiyo dawladnimada Soomaaliya. ra'iisul wasaare Rooble wuxuu sheegay in madaxweyne hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku soo qaaday weerar ciidan xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo xafiisyada golaha wasiirada si looga hor istaago gudashada waajibaadkooda qaranka. ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble wuxuu ku amray dhammaan hay'adaha dawladda oo ay ku jiraan ciidamada qalabka sida in ay si toos ah uga amar qaataan xukuumadda xafiiska ra'iisul wasaaraha gaar ahaan wuxuu faray ciidamada qalabka sida in aysan ka amar qaadan madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble wuxuu aad ugu nuuxnuuxsaday sida ay uga go'an tahay in doorashada baarlamaanka federaalka noqoto doorasho hufan loo siman yahay daafuran. wuxuu sheegay in shirkii golaha wadatashiga qaranka oo lagu balansanaa 27 December 2021 dhici doono madaxda dawlad goboleedyadana ay ka soo qayb gali doonaan. nasiib daro ra'iisul wasaare Rooble kuma xusin khudbadiisa geesiyaashii ciidamada badbaadada qaranka ee fashiliyay isku daygii muddo kororsiga Abriil 2021 iyo isku daygii afgambigii 27 December 2021 kuwaasoo u bareeray in ay noloshooda u hibeeyaan difaaca dastuurka iyo dawladnimada Soomaaliya. ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble waxaa sugaya inuu u diyaar garoobo muujadaha iska soo daba dhacaya maalmahan gudaha iyo dibaddaba. waxaa halkan hoose ku soo bandhigaya talooyin ku aadan muujadahaasi oo ay soo bandhigeen khubarada ka faalooda arrimaha siyaasadda dalka Soomaaliya. qodobka koowaad in talaabooyinka dhaqanka iyo go'aamada ra'iisul wasaare Rooble waafaqsanaadaan khudbadii taariikhiga ahayd ee 27 December 2021. waxaa muhiim ah in ra'iisul wasaare Rooble qaadan tallaabo iyo go'aan aan mudnaanta siinayn kuwa difaacay dastuurka iyo dawladnimada ciidamada badbaadada qaranka. qodobka labaad in dhacdadii 27 December 2021 loo fasirin khilaaf dhex maray ama dhex yaal asaga iyo madaxweyne hore Farmaajo ee dhacdadaasi ahayd afgambi dhicisoobay. sidaas darteed madaxweynihii hore ee Soomaaliya Farmaajo yahay dambiile qaran ee ku tilaabsaday in uu burburiyo xukuumad sharci ah isla markaana hor istaagay geedi socodka doorashada baarlamaanka federaalka
isla markaana halis geliya nolosha ra'iisul wasaaraha qoyskiisa iyo ilaaladiisa. qodobka saddexaad in beesha caalamka laga codsado in madaxweyne hore Farmaajo laga fogeeyo xarunta madaxtooyada si howlaha xukuumadda xilgaarsiinta iyo hirgelinta howlaha doorashada uga badbaadaan jilaafooyin iyo qalalaase, isla markaana xubnaha golaha wadatashiga qaranka uga xoroobaan kontaroolkiisa, fidnadiisa, cadaadiskiisa iyo hagardaamadiisa. qodobka afraad in beesha caalamka loo sheego in ku sugnaanta madaxweyne hore Farmaajo xilka madaxweyne sharci darada ah ee xaaladda siyaasadeed ee dalka gelisay cakirnaan, qalalaase, ismaqal la'aan iyo kalsooni daro. sidaas darteed waxaa lagama maarmaan ah in si degdeg ah madaxweyne hore Farmaajo ka mid noqdo musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynaha in uu faraha kala baxo dhammaan howlaha dowladda. haddii uu ka harayo musharaxnimada waa ka sii fiican tahay, wuxuuna noqon karaa dibad joog ilaa laga dooranayo madaxweyne cusub. qodobka shanaad in safaaradaha shisheeyaha, xubnaha golaha ammaanka iyo madaxda dalalka iyo ururada caalamiga ee arrimaha Soomaaliya daneeya lala socodsiiyo afgembiga iyo mowqifka xukuumadda xilgaarsiinta iyo codsiga ah in Farmaajo laga fogeeyo madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si looga gudbo caqabadaha iyo xiisadaha ee wadaan tabcanayaasha. qodobka lixaad in wasaaradda arrimaha dibadda iyo diblomaasiyiinta Soomaaliyeed lagu wargeliyo go'aanada ku xusan khudbadda ra'iisul wasaare Roble, isla markaana lala socodsiiyo ka amar qaadashada xukuumadda iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha oo kaliya. qodobka toddobaad in saraakiisha ciidamada xoogga dalka, nabad sugidda iyo booliiska loo sameeyo kormeerayaal ka mid ah golaha wasiirada si loola socdo howlgalkooda. qodobka sideedaad in madaxweynayaasha dowlad goboleedyada oo ka mid ah golaha wadatashiga qaranka lagu baraarujiyo in laga wada shaqeeyo samata bixinta dalka iyo turxaan bixinta doorashada si kalsoonida shacabka kor loogu soo qaado. qodobka sagaalaad in shacabka Soomaaliyeed laga codsado feejignaan, heegan iyo taageero buuxda muddada kala guurka ah si loo hirgeliyo doorasho hufan iyo xasilooni siyaasadeed. qodobka tobanaad in beesha caalamka, samajeclayaasha, danleyda siyaasadeed, dalaaliinta, qaswadayaasha, jahwareeriyaasha la gaarsiiyo in aysan ku mashquulin dhexdhexaadin iyo arrimo kale, loona sheego in danta dadka iyo dalka ku jirto in madaxweyne hore Farmaajo u hoggaansamo dastuurka iyo dhaqanka wanaagsan ee dowladnimo ee uu ku dhaartay 8 Febraayo 2017, isla markaana ka buuxa khudbadihii uu ku galay tartanka doorashada xilka madaxweynaha. qodobka 11aad in lala socdo kooxaha ku hoolan beenta, dacaayadaha iyo marin habaabinta ee isugu jira Soomaalida iyo ajnabiga ee ay howlgeliyeen madaxweyne Farmaajo iyo kooxdiisa nabad iyo nolol. guud ahaan daawadayaal waa inaga inta warbixintii aad ka daawanayseen channelka Xogta Media tan iyo warbixintan mid lamid ah inta dib isugu kulmi doonana nabadgelyo.